dalalka Afghanistan iyo Pakistan ayaa aaday jihada dagaalka kadib maalmo badan oo halkaas isdaandaansi siyaasadeed iyo mid militari ka jiray waa dhanka xuduudda u dhaxeeya labada dal. Pakistan ayaa bilowday weerar si toos ah ugu qaadayso magaalooyinka waaweyn ee dalka Afghanistan halkaas oo ay sheegday inay kula dagaalamayso koox argagixisa ah oo soo daadaansatay isla markaana ku soo xadgudubtay jiritaanka dalka Pakistan. Dhanka Afghanistan waxay sheegeen inay u dhaqaaqeen isdifaac taasoo ay ku difaacanayaan xuduudaha dalkooda isla markaana waxay sheegeen meel walba oo xuduudaha iyo boordarrada ay la wadaagaan dalka Pakistan inay geeyeen ciidamo aad u tiro badan si ay u difaacaan. dhanka kale warar iskhilaafsan ayaa ka soo baxaya khasaaraha halkaasi ka dhashay kaasoo la sheegay inay jiraan ciidamo la kala qabsaday iyo waliba dhimasho iyo dhaawac dad shacab iyo military intaba soo gaaray. dagaalkan oo bilowday saacadihii dambe ee Khamiistii ayaa la sheegayaa inuu ku fiday meelo badan oo kamid ah xuduudaha ay labada dal wadaagaan. wali ma jirto wax faahfaahin oo ka soo baxayo balse wariyaasha uga soo kala waramaya Al Jazeera warbaahinta Al Jazeera magaalooyinka Islamabad iyo Kabul ayaa sheegay inay jiraan dhinacyada dagaalka isweydaarsanaya khasaarooyin walow Twitter-ka isku weydaarsadeen hadallada midba kale uu ku inkiray khasaaraha soo gaaray. afayeen u hadlay karabka Taliban ayaa bartiisa X-ka ku soo qoray inay dileen tiro militariga duulaanka soo qaaday oo ula jeeda militariga Pakistan isla markaana ugu yaraan 15 askari oo militariga Pakistan ka tirsan ay gacanta ku dhigeen halkaas oo qarkood ay dhaawac yihiin isla markaana ay ku dabiibayaan gudaha dalka Afghanistan asoo sheegay inay ka jawaabi doonaan kartaro walba oo Pakistan ay ku soo beegsato dalka Afghanistan. halka wasiirka difaaca dalka Pakistan gabi ahaanba uu beeniyay sheegashada ay sheeganaysa Afghanistan ama Talibaaniyiintu inay qabteen askar ka tirsan ciidanka militariga dalka Pakistan. weerarkan oo Khamiistii ay ku ekeysay Pakistan dalka qaybo kamid ah dalka Afghanistan isla markaana diyaarada ay ku wajahday ayaa waxa la leeyahay waxay ka dambeysay kadib markii wada hadallo badan oo labada dhinac u dhaxeeyay oo dawladda Qatar ay watay ay gabi ahaanba ku daraysteen kaasoo looga hadlayay xadgudubyo ka dhacay dhanka xuduudda oo labada dhinacba dhowr mar ay xabada iyo isku weydaarsadeen dagaal aan toos ahayn iyo mid toos intaba. wali ma jirto wax kale oo ka soo baxay halkaas balse khasaaraha aad ayuu badan yahay. subaxnimadii hore ee Jimcaha wariyaha Al Jazeera uga soo warantay magaalada Kabul ayaa sheegay in halkaasi diyaaradaha Afghanistan ay ku ekeeyeen weeraro buuxo kuwaasoo gabi ahaanba argagax ku riday dadweynaha ku nool magaalada Kabul halkaasoo la sheegay in kala orod iyo kala carar uu ka dhacay. isbitaalada dalka Afghanistan ayaa la sheegayaa in la arkay iyadoo loo sii qaaday dad aad u badan oo qarkood dhaawaca dhibaatooyin ay ka soo gaareen deegaanada buuraleyda ah ee dalkaasi. magaalooyinka Kabul iyo Kandahar ayaa noqday labada meel oo ay aad u beegsanayso dawladda Pakistan halkaas oo ay ku tilmaantay inay ku jiraan argagixisada Talibaaniyiin iyo kuwa la shaqeeya oo ah cadawga goobaad ee dalka Pakistan. waayadii ugu dambeeyay Pakistan waxay sheegtay in gabi ahaanba Taliban ay martigelinayso kooxo argagixisa ah isla markaana ay u hoosaasinayso dalka Pakistan weeraradana looga soo qaado dalkaasi. gabi ahaanba warkaasi kaashanka ay u durureen Talibaaniyiintu waxayna sheegeen inay yihiin muwaadiniin dalkooda dawladka isla markaana dalkoodu aysan wax argagixisa xiriir lahayn ama aysan martigelinaynin. Taliban ayaa ahayd dawlad ka hor inta Mareykanka uu burburin taasoo fikir ahaan ku dhalatay dalka Pakistan. dabcan fikirkii ka dhashay dalka Pakistan oo ku koray Afghanistan ayaa hadda isku bedelayo kacaan iyo dagaal cusub oo looga soo horjeedo isla dawladii ay ku curteen. Talibaaniyiintu waxaa la sheegaa in asalkoodii horeba ay ka soo bilowdeen fikir ahaan dalka Pakistan halkaasoo lagu aasaasay 40 sano ka hor. dalkani loogu yeero jaxiimada reer galbeedka ayaa inta badan dagaalo soo daalay oo muddo badan socday ku soo jiray taasoo welina ay u muuqata in dagaalka uu ku sii jirayo. Afghanistan ayaa tan iyo markii ay Mareykanka iska saareen 3 sano ka hor ama tiro 3 sano ku dhawaada ay waayadii ugu dambeeyay waxa la soo sheegay in amniga dalkaasi uu ka soo reynayo dalkoodana xuduudihiisa gabi ahaan bay xirteen isla markaana ay difaac sameysteen. waxay xiriir diblomaasiyadeed mid military mid ganacsi intaba la fureen dalal reer galbeed iyo kuwa reer bari oo China iyo Ruushka ay ku jiraan leeyahay. walow Mareykanku wali uusan dawlad ahaan u aqoonsanayn xilli gabi ahaanba dalka uu ku wareejiyay oo asaga iskaga baxay ayadoo lagu sheegay dhaqaalihii ugu badnaa
oo maraykanka dagaal uu geliyay inuu halkaasi geliyay walow markii ugu dambeysay uu shacabkiisa si fudud ugala soo baxay. Afghanistan oo laga shakisanaa nooca ay noqon doonto ayaa hadda waxay u muuqataa inay noqdeen dad ismaamuli karo islamarkaana Taliban sidii loo maleynayay aysan ahayn oo kooxaha argagixisada aysan hoosaasinaynin. Isku soo wada duubee dagaalkani weli ma jira cid si toos ah dhexdhexaadin u samaysay, balse warar ayaa sheegayo in Iiraan ay mar kale labada kooxba miiska wada hadalka ugu baaqday, halkaasoo ay rabtay inay ku wada hadalsiisay islamarkaana ay ku soo dhammayso waxaa halkaasi ka jira, maadaama Qatar ayadu ay ku guuldareysatay in wixii dalkeeda ka dhacayay ay wax natiijo wax ku oolo ku soo baxaan. dhanka kale Iiraan dan uguma jirtaa in dagaalkani uu sii socdo maadaama labada dalba ay daris la tahay islamarkaana ay wadaagaan shacbiyad labada dalba oo dhanka diiniyanka iyo dhaqanka wadaago. Shiicada Bakistan, shiicada Afghanistan iyo shiicada Iiraan ayaa la sheegaa inay dad xiriir dhow la yihiin islamarkaana ay reeguura yihiin inay ku wada dhaqmaan boodharada ama xuduudaha dalka daaqa ku yaallo. dowladihii kala dambeeyay ee Mareykanka uga dhashay dalka Afghanistan ayaa dhowr mar waxay ku eedeeyeen dalka Pakistan inay martigeliyaan kooxaha argagixisada oo Taliban ay ugu horeysay halkaas oo weerarada ugu badnaa laga soo qaaday. Inkastoo dhowr mar ay diiday Pakistan ayaa haddana hogaamiyihii Al-Qaacida Osama bin Laden ayaa lagu dilay xadka meel u dhow xadka u dhaxaysa dalalka Afghanistan iyo Pakistan, halkaasoo Mareykanka uu sheegay in Pakistan ay ahaayeen kuwa martigelinayay argagixisadii ku soo duuleysay dalka Afghanistan. walow markii dambe dowladahaasi ay burbureen Taliban halka ay qabteen halkii la filayay in Pakistan iyo Afghanistan ay ku wada joogi doonaan nabad, xaaladdu ay ka dartay islamarkaana ay dagaal isku bedeshay, taasoo wixii dowladihii kala dambeeyay Afghanistan iyo Mareykanka ay sheegi jireen been ka dhigayo markaana uuna jirin xiriir toos ah u dhaxayn kara Afghanistan iyo Pakistan. dowladda Pakistan waxay la daaladhacaysaa la dagaalanka kooxaha argagixisaha iyo islaamiistayaal aad ugu soo foofay dalkaasi islamarkaana qaraxyo badan masaajidyada iyo goobaha ganacsiga iyo goobaha dadku ay ka shaqeeyaan iyo weliba xarumaha dowladda beegsanaya, taasoo inta badan dhimasho aad u badan ay ka dhacdo. waxaa ugu dambeeyay 2 isbuuc ka hor markii masaajid ay shiicadu leedahay lagu qarxiyay dalka Pakistan, halkaasoo dhimasho aad u badan ay ka dhacday islamarkaana dalal badan oo shiicadu ay aad ugu nooshahay oo Iiraan ka mid tahayna aad uga xanaaqiyay. Afghanistan nafsad ahaanteedu weli qaraxyada ay ku sii socdaan, balse waxaad moodaa in laga xakameeyay sidii hore, walow Afghanistan ay u diyaar garoobaysa inay noqoto dowlad caalami ah oo caalamka laga aqoonsan yahay. dabcan waxay ka soo baxay dagaalkan barnaamijyadeena dambe ayaan ku falanqayn doonaa, waxaana la sheegayaa weli Pakistan inay weeraro ku wato magaalooyinka Kandahar iyo Kabuul, halka Afghanistaniyiintuna ay iska caabin wadaan islamarkaana waxay ciidamo lahaayeen labada dalba ay soo dhoobeen xuduudaha ayaa la sheegayaa. walow dhanka Pakistan ay ku horumartay hubka waaweyn iyo diyaaradaha wax kumaaday iyo kuwa qumaatiga u kacay intaba, haddana Afghanistan nafsad ahaanteedu waa jabhad ka timid dagaal aad u adag oo ay la kaleen mid ka mid ah dalalka adduunka ugu awoodda badan ee Mareykanka, halkaas oo ugu guuleysteen dalkooda. waxay ka soo baxay barnaamijyadeena dambe ayaan ku faaqidi doonaa isha ku haya warbaahinta Somali Positive Network.